guba bilowgiisi hore wuxuu baay qabay barashiyowkii yuu kaga bogtay xafladeedana waxay daaran tahay waxaan in badan sugaynay oo ah horumar ballaaran oo ay soo bilowday kuliyaddu 2009 laga soo bilaabo iyo maanta aynu joogno oo 2016 kuliyadda asaaskeedu wuxuu ahaa bilowgeedii markii la aasaasay waxay ahayd 2009 albaabadana waxa loo furay 2010 sababaha loo aasaasay kuliyadda waxa ugu horeysay oo number 1 ka ahayd waxaynu ogeyn shortage of health professionals in dhammaan dalkeena Soomaaliland uu ka jiray sababtoo ahayd dhaqaatiir 20 sano ugu dambeeyay ama decades ugu dambeeyay lama soo saarin kuwii dhaqaatiirtii hore u jirayna waxna way gaboobeen waxna dalka way ka dhoofeen waxna markaa way dhinteen bootoodii baa u timid sidaa awgeed waxay sabab noqotay in la soo saaro cidii bedeli lahayd u shaqayn lahayd bulshada iyadoo ay muhiim tahay in la buuxiyo health sector-ka dalkeena sanadii ugu dambeeyay jaamacadda Golis oo laga siibay kuliyadda caafimaadku waxa ay aad uga hawlanay sidii ay kor ugu soo qaadi lahayd waxbarashada caafimaad ee Soomaaliland waxaana maanta idinka marqaatiyay inuu Ilaahay nagu guuleysiyay arinta shahaadada ay NHPC na siisay وسورة المهدي شق وشهادة غوريسي الجامعة السيئة أما ديوان قرنتي غوريسي سومالان لقسيئة تاسنا غوري بينوتاي إن أنا كفرحت قارئ يتاي ويا ما هقول كلية عافمات وكلية تجاري ما هقول أي قول سكلية تجاري وقول سومالان قارئ ويا الشرع قالوا أساس كريه اللي هو قيمة جامعة قول كلية عافمات كا وحي كان لقنت إن شرعيه شرعية إنه وطنك برلمان كسحين وقولها وزيرته أقليين مدحونه سحي إنه هيركشين حي أولو إلى علنا يوم تيادا تعليم تا عافماتك إن واحد كله يقولوا تهاي أرضي ذي والدك وهي جامعات كستا شهادة وكسين كرتا ما أنت تقارن شبيسو لكن واحد كده كان تهاي ما أنت تقارن شبيسو شهادة هذا ما لاقون سينه دلكم ما لاقون سينه وسعر عافمات ما لاقون سنتا ما كل شقتك كرتا ما أنت روح هذيك مرخاتية شهادة نوتها سومالان ويدنا قوسنتا إن أردت كلا دكتور مهدوكا هذا هو كينغز كولج تانا يلو مكيرو لها وحويا وطن كاستاديد وحوليه هي ميديكال إكسام وحوليه فاينل إكسام لقاسمه إنك واحد أدنى وليرنا تي أردنا إن نقرأ قيم كشيء إن لقاسمه امتحانada dhaqaatiirta wadanka Soomaaliland ka soo baxaysa ay hal imtixaan ama cid ka wada qaado goob laga wada qaado waayo waxa weeyaan waxa lagu eegayaa tayadii dhaqaatiirta inoo soo baxaysay waliba waxaan ku bogayn lahaa wasaaradda caafimaadka iyo NHPC-ga in wadanka loo sameeyo national exam waayo waxa ay qadarinaysaa oo ay qiimo wada marinaysaa waxa loo wixii dhaqtar inoo soo baxa aad baad mahadsantahay salaam calaykum waxaan jecelahay inaan in yar ka hadlo qaabkii aan ku bilownay qaybtan caafimaadka aan kamid ahay iminkana ardayda seniorka ama ardayda ugu sareysa ee bilaha soo socota ka qalin jibin doona qaybtan caafimaadka maadaama oo wax walba la bilaabo waqti qaybtan caafimaadka waxa la bilaabay 2009 sidoo dhinka qaybta caafimaadku noo sheegay laakiin waxa si rasmi loo furay 2010 anigoo kamid ahaa ardaydii lagu furay markii ugu horeysay qaybtan waxa jirtay sidoo doctor mahadba arabaabay markii aanu bilownay waxa kaliya aanu haysanay wuxuu ahaa classes iyo kuraas iyo macallimiin waliba waqtiga koobna laakiin sanadihii ku xigay markaanu bilownay jaamacadda waxa la bilaabay in si degdeg ah loo tayeeyo qaybta caafimaadka ee aan waqtiga bilownay waxa la habeeyay curriculumkii ama manhajkii aan wax ku dhiganaynay waxa la kordhiyay macallimiintii ama dhaqaatiirtii waxna barayay waxa sidoo kale la ballaariyay laababkii aan u baahnayn oo badankooda laga keenay wadanka dibadiisa maanta oo waqtiga laga joogo 6 sano qaybta caafimaadka ee jaamacaddu waxay leedahay ama arday ahaan waxaanu haysanaa hal campus oo dhameystiran
oo ay yaalaan dhammaan qalabka caafimaad ee u baahan yahay inuu wax ku barto arday caafimaad oo dhiganaya jaamacad caafimaad. gabagabadii waxaan kusoo gabagabayn lahaa kelmadayda aan kula dardaarmayo dhammaan ardayda caafimaadka gaar ahaan ardayda ka qalin jebinaya qaybtan caafimaadka oo aan leeyahay maadaama dadaalka intaa la geliyay maantana ay gabagabo ku dhowdahay halgankii aynu inta badan soo wadnay waxaan ardayda kula dardaarmayaa hurdo yar iyo hawl badan aad baad mahadsantihiin. maansada dadab waxay ku bilaabaysaa sida daraqooneedka buuxa ninba docdu istaago ayuu ka dartaa markiise haddaan daaftay arooro dulucda ujeeda baaro dariiqa hore u qaado dabuurtaydana asteeyo dul baan ahay aqoon leh diin iyo xiqaadoo damiir iyo garasho dheer rabbigu ku daahay cilmiga doorarkiina ka dabtay webiyadiisa weliba digtoora baaray iyagoo dekenadiisa dawlna boholadiisa haliso dibinadiisa khataro daaqinkiisa haddana doortoo astaysta markay ku arkaan duleedda hooyo jidhkeedu duumay xanaano la'aan darteeda nafaqa la'aan la diiday markay ku arkaan duleedda ruux bukaan ka daalay jidhkiisuna daciifay lagu yidhi dagabyadeenna ma taal daawadaadu isagoon diinaar baxaynin amintaan dhaxdin dareerka gariirka ka kacay dirkaaga intaad dibindaab ilowdo degda golisoo ma aadid dadabta midhisinku leeyay soo hebel ma aadan dookhan yacni aygu markaad aragto waxyaabahaasoo dhan ayaad dareemaysaa waxaanaad baranaysaa qiimuhu leeyay iyo baahiduu qabo bulshada. runtii jaamacadda golis anigu macallin baan ka ahaa labadan baaji ugu sarreeyay caafimaadka wax baan u dhigayay. waxaa runtii farax gelinaysay iyadoo duruufuhu adag yihiin in la bilaabay dabeetana aniguna aan go'aansaday markii la yeedhay inaan wax intay karaankayga aan ka qayb qaato. waxaa halkaa iga soo baxay dadka bini'aadamka haddii la yar tusaaleeyo ama wax la tuso ama wax loo sheego inuu markaaba qaadanayo sidii saxda ahaydna u dabaqayo. marka runtii fasal wuxuu ahaa 20 arday fasal wuxuu ahaa 30 arday 30 kuma runtii wax aad loogu farxi karo oo rajo fiican aad u gelisay waddankan ay ahaayeen. waxaan la waxaa aad u muhiim ah inaan xusno halkan ka xusno in baahida caafimaad ee dalkeenu ay aad u sarreyso. mar aanu WHO-da iyo qiimeynay consultant ka socday iyo wasaaradda caafimaadka baltirakobyada dadka la hayo ama dhaqaatiir ha noqdo ama nurse ha noqdo ama umulisooyin ha noqdaane halkii looga baahnaa inay 23 la helo adeegyo caafimaad bixin kara oo siin karo 10,000 ee ruuxba. waxaa noo soo baxday markii calculation-ka aanu samaynay 3 ruux macnaha halkii aynu 23 ka doonaynay inaynu 10,000 ee ruux ee population-keena ka midaba u helo 3 ruux baa soo baxday. taasi waxay muujinaysaa faraqa weyn ee baahida dalka taalla. waxaana muhiima runtii in la dhiirigeliyo waxaa muhiima in dadkeena tacab badan la geliyo waxaa muhiima ilaa iyo in halka inta laga gaadhayo 23kaasi oo laga soo dhaqaaqayo 3da in la wado. runtii aad baan jaamacadda golis runtii way dadaashay. wax kaloo aad u xuseeya waxaa aad u dadaalay runtii wasiirkan wasaaradda caafimaadka Dr. Suleyman oo runtii go'aansaday in caqabado badan oo horyaalay uu kor qaado oo ay ka mid ahayd inuu aqoonsado inuu cisbitaalkii weynaa ee magaalada Hargeysa uu aqoonsado inay teaching hospitalkaasi ay isticmaalaan. runtii taasina waxay arrin kale oo horumar weynaa. waxaa runtii maantana iyaduna horumar weyn kale inoo ah in deele ay kings ay aqoonsadaan oo inay external examinerski loo baahnaayo inoo soo diraan. waxa kaloo inay NHPC inay runtii marka ay qiimaysay iyaduna Dr. Axmed Xaashi Nuur ama Dr. Axmed Xaashi Oday oo isna runtii aqoonsaday inay noqoto kulliyad lala shaqayn karayo oo qualification-kii ama standardkii loo baahnaa ay iyaduna buuxisay. runtii taasina waxay noo tahay farxad. horta waa farxad weyn golis inaan maanta halkan aanu wax ka jeediyo ma ahayn waayo macallinkaygii baa halkan fadhiya Axmed Xaashi marka waa maaragtay inaan duudu kuwado ayaan doonayaa. waxaa ii raaca marka doctor lee DR anu ka mid baan hay DR taa laakiin tii marka la eegayo
inta badan waxaa la raaciyaa ama waa MD iyo PhD baa la kala yidhaa aqoontu way noo soo kordhaysaa waayadii hore ee ingiriisku joogay een la aqoonin maalin baan kalaaskan medicine-ka aad ugu sheekaynayay waxa weeyaan oo kelmadda la yidhaa basas oo la yidhaa waxbaa qaato waxbaa galay inantii inan baa gashay ama naagta naag baa gashay waxa ayaa dhakhtar loo keenay inan ninkii Roomaaniga la oran jiray dhakhtar Hargeysa jooga marka turjumaankii baa ku wareegay wuxuu doonay inuu sheego inuu yiraahdo something baa basas galay waxbaa ku jira marka intuu ku wareegay waa afkala dhakhtarkii baa yidhi maxaa dhacay Swedish doctor this woman another woman inside naagta naag baa ku jirta buu doonayaa marka waxa weeyaan turjumadeedii imika daa waxbaad baratay oo mutacallimiin baad noqotay laakiin tuu khatagaasay marka xagga cadaaladda la eego booliiska oo aniga shaqadaydu ay tahay booliis ayaa nin la yiraahdo Saxardiid Cabdidhibo oo generaaladeennii hore ahaan jiray marka Ingiriiska jooga ayaa waagii Ingiriisku yimid ayaa khayriyada SLS la dhageysan jiray niman ka hadlaayo oo Masar ka yimid oo Maxamed Cali Faarax iyo علي ميجاك سمعتوا إبراهيم أيوة واحد كهذا يعني شغله لورين شري بهبين كهذا مركب بليس كيبا دوني يسوع شجعان وهبين كيبا الله في بورجرين يا إنجليز أرون نمدي هذا الكواح اللي هذا الكمال اللي مثلا ما أورن هدي اللي نور شجعان عن نحن يا يدي بل أنت أصلا عسكر الصومالي اللي ترتمك هذا الكمال اللي مثلا ما أورن هدي اللي نور شجعان عن نحن كوما يدي marka inta iskaga dhuftay Cabdidhibo inta ku dhuftay if to talk or no talk say that we say waa turjumaad qasaba bay ahayd laakiin tiimka markaynu eegno waxa weeyaan aqoon baynu baranay maalin weydo waxaan aad ugu farxay habla laga qaadayay buugoogii daafacayay tiisiska oo ah veterinary-ga ninkii dhiinka waxa waxaan weydiiyay markan hablaha Ingiriisidoodii ka yaabay ayaa waxaan weydiiyay ma masterkii bay sameynayaan markaas waa first degree waa BA marka alxamdulillah baan maartay ma waxadana luqadna way wada socotaa qofkuna waa inuu luqada aad u bartaa maanta waxaan amaanayaa xagla toosiyay oo runtii wasiirka caafimaadka intii uu noqday anigu odayaasha jaamacadda la shaqeeyanahay qaybta wadiga caafimaadka maalintii meesha yimi noo ogolaaday inaad dhakhtarka ku qaadataan tababarka practical aad baan ugu mahadnaqayaa mar dambana waan u tagnay waxaan ku nidhi meel laba maqsin laga dhiso oo ardaydu ay ku labistaan waxaan malaynayaa waan maqnaa maalmahan inuu siciid hawshaa gageeyey dhulkii uu la siiyey laydinka dhisi lahaa labada maqsin aad ku labisan lahaydeen aad ku nasan lahaydeen aad baan ugu mahadnaqayaa madaxdiina waan u mahadnaqayaa laba jaamacadood baa dalka aad idinka tugtug badnaa jaamacaddiina waxay noqotay jaamacadda maanta ceergaabo ka furan ee laascaanood ka furan ee bowrama ka furan ee berbere ka furan ee hargeysa ka furan taasina waxay ku timi dadaalka madaxdiinnu ay idiin samaynayso ee ay leedahay halla daadajiyo jaamacadaha halka ay camuud iyo hargeysa labadii midna bowrama dhaafilaadahay midna hargeysa dhaafilaadahay madaxdiinnu waxay u dadaalay inay gobollada oo dhan jaamacadda gaadhsiiyaan aad bay u mahadsan yihiin ugu dambayntii waxaan idin leeyahay ardayda dhakhaatiirta ahi ma tahriib badna kuwa injineerada ahina ma tahriib badna laakiin kuwii IT-ga bartay wad baa marisay ilaahay waxaan ka rajaynayaa in kuwii dhintayna u naxariisto ardaydana waxaan kula dardaarmayaa inta dhakhaatiirtaa mooyaane inta kale inay bartaan cilmiga injineerinka la yidhaah oo maanta waa laynoo soo tahriibaya mas-uuliyadda maanta dalka ka shaqaysaa waxay u badan yihiin qurbihii iyadoo qurbihii laga soo tahriibayo inay idinku tahriibtaanna aad baan uga xunay
waxaan gabagabadii kaga baxayaa war injineerinka barta ha ka xishoonina marka inanku tago Yurub ama rijiibuu noqdaa ama waashmaan buu noqdaa weliba teenana ka lacag badan kuwa qasabadaha barta kuwa macdanta barta xaggaas waa kuwa ugu qaalisan baa la yidhi odayaal waaweyn oo imika shaqooyin laga siiyo jaamacado waaweyn ka soo baxa laakiin lacagta halkan la qaata iyo lacagta Yurub la qaata waxaan ku hayaa warka inay teena halkan la qaataa ay ka badan tahay ta Yurub la qaato dhammaantiin waan salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ardayda maanta halkan fadhidaa markay qalinjabinayaan saacadda wasiir waxay ku bilaabmeen 100 إنسان دكتور ما هذا هذا لبعض وكذا وقال يقول كذا لبعض سوا لبعض كاسين وبرفني كارد سوما فني يعني واحد بتي فني كواحد كذا يربط لا إير أو تيون أحسن أنتي كلنا قار باشرة دم صغيرة نقضي لكن تيون waxay ku tusaysaa jaamacadda golis marka xagga tayada inaana waxba dhimin waxna dhaafin xasha ma jirto yes golis waxay ku bilaabtay sida Soomaaliland yaban boardkan ka soo qaadnay laakiin maanta alxamdulillah waxaan ku qaban karaynay waxaan ku qaban karaynay jaamacadda iyo kulliyadda waan u qabanay investment ka jaamacadda la geliyay markaad eegto medicine-ka ku darto engineering-ka ku darto waxa layna siiyey laynagu caawiyey iyo waxaynu inagu gashanay 6 malyan oo dollar way ka badantay jaamacadda golis 12 sanadood jirtay intaynu gelin 6 malyan waxa ku jira ilaa malyan iyo 170,000 oo dollar haddii la isku daro ardayda bilaashka ku dhigatay ee freega ku dhigtay malyan iyo 170,000 sanad kale oo kaliya 800 oo dhow oo arday ayaa ka baxaysa 830 ka 106 arday ayaa free sanad kale oo kaliya marka taana jaamacadda golis kama maqna inay social responsibility qaato inay dadkeena oo aan wax badan haysan ana waxaan u aragnaaba inuu free lagu dhigto waayo inanka civil engineering ka dhiganaya ama medicine ka dhiganaya hargeysa ku dhiganaya ee 300 ilaa 250 ka bixiya dunida qaar baa inta 15,000 dollar semesterkii laga bixiya medicine kuna baasaboor male haddaad Mareykan ku dhiganaysana the same curriculum baad raacaysaa haddaad hargeysiyo golis ku dhiganaysana the same curriculum baad raacaysaa civil engineer kuna wasba ama gurigan baad dhisaysaa kanoo kale ama Washington ku dhis ama Qobrus ka dhis ama Australia ka dhis ama hargeysa ka dhis beesha kana ama hargeysa ku daweey ama Qobrus ku daweey ama Los Angeles ku daweey xanuunku waa isku mid baasaboor marka sidaa daraadeed haddana intaas waa intaynu ku soconno jaamacaddu waxay ardayda ka hesho in bay xuquuq qabataan waanan tayadana waan sii tayaynaynaa maanta UNESCO waxaynu ku jiraa jaamacadaha ay ictiraaftay July baana website-ka laynagu soo daray waa UNESCO waa wax kaloo inoo soo kordhay halkan waxaan ku aragnaa King's College iyo ASIC iyo NHBC iyo wasaaradii oo hore inoo ictiraafsanayd afarta inoo haysana UNESCO-na way inoo soo kordhay macallin waan ahaan jiray bal inaan soo jeedaan in kala ogaanaya ereyga medicine qaybta mobility baa digitiimiya ereyga medicine waa afkii ma Talyaani ma Latin ba ma Soomaali ba xagu ka yimi doctor xagu ereygaas ma Latin ba ereyga medicine ya haddaba waa seexateen intuu si ereygaas waa Soomaali sidoo kale waa aasaash waxa uu yahay xubnaha jidhkeena mid kamid ah ayaad ogaanaysaa baaraysaa inay xun tahay inay san tahay ereyga jidhka ama shaybaad ama isha ku arag waa xun tahay ama way san tahay oranaysaa way wanaagsan tahay waxsan caafimaadsan
أما شيبان وسمينسا أما قلب الاستعمالسا هدو حي وهذا زميل كسوه هي هدو سنة هنا وميتسن مركب وميتسن وقيت عفات هو عقيت من توشية إلي كان لا يسكت إلي حتى عافمات كميتسن وصوالي كده صلاة أنا فرحان لبعض أيام تيجي هاي كم هذا يوري وزينمو في الجو إنجنيرينج لكن عفات كمية لكن أرضي كمية يا ولد كي وهاي أورتي جامعتها لقى هذا يا ولد سيستا بايوميديكال كورسات رئيسي سنتشال يونيفرسيتي on إبلا إسلام كون عن والدها وتكيب يمتلنا هالكاسة ودكتور الله برتا والكهلسة بيواتك سؤال لما قوسنا سؤال محل ما قوسنا لكن ما ضرب هاي فرحانة إن قوسي حقي جامعة وكسر قليله حنبري عند الله تعالى waxaan mid laba u diray dadka rasuul Allah oo baahan jooga ee moodaya abuurooda ee barakaray wadankeena nimca taala aqoon ba taala xagga loo tahriibiyo oo soo timaata caalamka qaxootiga inuu noqday global problem migration farbatay lagu farbatay iyana xagga ay soo socdaan waxaan aad u baliyeenayaa dhakhaatiirtaas soo riirtoodii wadanka UK oo u dhawaa ka yimi dedication iyo waqtigiisii waxaan leeyahay thank you very very much waxaan leeyahay كلية الجلس مركا وحياة أنا أبغى أماني وحكمها كنتي هرمرك هاي قاعدون وايو هرمرك وحلو قرا وقف كويل وكرو يا أم بجسمي سلا قرتا أم بعقلي سلا قرتا أم بتمرتي سلا قرتا مركا الجلس كورين تلو حلا قرانيا مركا قبلو دون قاعدين نكى جوال كورا يسكفر لو أرسلوا من نيجي تسباشي نام كفشل أيها ما أنت قبل ربك كفرت الجلس ما أنت تقول قال لك فرا واحد سوتني صوت تنسى الأوضة هذا واحد كأوم عليه وسيسيين يوكرسي كعيل ولا وسيسعد مركز أنا ارتبطت أدبان وأماني الجلس إمام كذا يحول الدبا مركز نقطة كلية عافمات فرتي كلية عافمات كواقع شيء سعيد وحيابا نقدر نقول قبلك الروح كوكا تيتيني الأوضة قفتي الأوضة دي قفوا أهل الميس oo de organiski meesha ku kala yaala ma garan maayo inta Google laga akhriyo waxa ka fara badan in badan dawladda Amerika go'aanka ka soo baxayso oo adiga kaliya ku sii socda laga xilta kala sii jiido aan Google aad ku arag Google marka horta shaybaar waa ka koow practical kana waa ka koow marka arday meesha teacher hospital yaalato jaamacadi oo ay shaybaar yaalato waxa weeye waxa soo gaadhay standardskii ay ku noqon lahayd jaamacad qodobka kale ee yinaadana aan ku sii ictiraafayaan waxa kamid ah haddii ay qoran lahayd si kulliyadaha qaarkood 130 dhakhtar baa ka soo qalin jiray waxba ma la ictiraafay laakiin marka ay noqotay in tirada inta laga soo gashay ee ay socotay maanta 20 marayso ساو سعيد شيء بالفيلم هذا سوحوي يعني هو أنت أتكيستي إذا شيء اللي ملوي قلبي ويدا بس كسوالي. horta tirada iyo tayadu meel ma wada galaan tirada iyo tayadu meel ma wada galaan waxa loo baahan yahay tayo tiro ma baahan qofka halkan ka qalin jabinaya iminka qolooyinkiina hadda dhamaysanaya waxa aad daweyn doontaan oo u shaqayn doontaan dadkeena waa inaan hubno eegno ogaano in lagu aamini karo qof dadkeena ka tirsan taasina waxay ku imanaysaa in la eego oo aan la fududayn in la iska ogolaado cid kasta oo doonaysa inay soo saarto dhakhtar ogolaanna mayno oo institution ka yeeli mayno una ogolaan mayno lana shaqayn mayno wasaarad ahaan haddii aanay buuxin dhammaan shuruudahan doonayno aad baan u adkaynana runtii jaamacado kale oo badan ayaa soo saara xirfadlayaal caafimaad kama xidhna inaanu la shaqayno laakiin cid kasta oo doonaysa inay soo saarto xirfadla caafimaad waa inay buuxiso shuruudaanu ka doonayno sidaasaanu ku ogolaanaynaa golis iyo hargeysa iyo camuudun ma aha jaamacadaha dalku jaamacad kasta oo soo saaraysa xirfadla caafimaad oo buuxisa shuruudaha aanu doonayno waanu ogolaanaynaa
tirada ay soo saarayaan ayaa ugu horeysa oo aanu ka rabno inay tahay tiro tayo leh oo yar. waxaan kale oo doonaynaa qoladiina iminka qalin jabinaysa maalgelin aad u badan baa laydinku sameeyey oo jaamacaddu idin gelisay, wasaarad ahaanna aad baanu idinku dadaalay. waxaa laydinka rabaa oo laydinka doonayaa in aydan dalka ka bixin markaad qalin jabisaane aad dadkii noo shaqaysaan. sida xaqiiqdu tahay waxa weeye fikir khaldan yaan laga fahmin dhakhtarnimada. fikirka iminka inta badan laga fahamsanya waxa weeye inuu qofku lacag helo ma aha. waxa weeye in aad dawaysid oo wax u qabatid dadka. markaa waxaan jeclaan lahaa inaydaan hargeysa iyo ku ururin meelaha dhadhow, meel kasta oo aad gaari karto inaad gaadho. meel dalku uu ballaaran yahay, waxaad moodaa cabdisaaq uu ogyahay dhakhaatiirtu waxay ku urursan tahay hargeysa. isagoo reer sallaxlaya oo dhakhtara ayaanu doonayna inuu sallaxlay tago. warbal markaad ugu yar tahay muddo ka soo shaqeey meesha tuuladaada tagoo ka soo shaqeey. halkan beri dhowd waxaa inoogu yimid dhakhaatiir ka yimid ingiriiska iyo new zealand oo dhallinyaro ahaa oo wareegayay bil iyo badh waddankeenna, daweeyey dad ka badan 3,500. tigidhkooda iyagaa la soo baxay, dawadooda iyagaa sitay. waxaa laydinka rabaa in aad meel kasta oo dadkeennu joogood gaari kartid tagtid, inaadan lacag ka horumarin dhakhtarnimadaada. beri dhoweed qaahiraan tegey, waxaan la kulmay wiil reer somalilan oo dhakhtara oo ka baxay jaamacad ku taalla qaahira. wuxuu ka shaqaynayay 3 sano u dambeysay dhakhtar ku yaalla qaahira. mushaharkaagu waa imisaan ku yidhi wuxuu waa $150 lacag u dhiganta oo see ugu nooshaa nolosheeda way kafaysaa. $150. dhakhaatiirteenu halkan maxay sameeyaan waad ogtihiin, lacag fiican bay sameeyaan. oo weliba kuwa publica ah ee dowladdu, iyadoo aynu nahay dowlad yar oo aan la aqoonsanayn oo aan dhaqaalaheennu badnayn, aynu ka mushahar fiican nahay waddamo badan. waynu dadaalaynaa. waxaa muhiima oon idiin sheegayaa sidii halkanba laga sheegay dhakhaatiirteennii waaweynay wax cagaystay oo shaqo doonayn iyo wax dhoofay iyo wax dhintay bay noqdeen, iyo kuwa iminka iska ritaayiraba. dhakhaatiirteennu waxay u badan yihiin juniors. wasaarad ahaan waxaan xil iska saarnay priorityna noo ah in junior doctorskeenna jooga la capacitate gareeyo, awooddooda la dhiso, kor loo qaado aqoontooda, scholarships badan la raadiyo si ay takhasusaad khaasa u soo qaataan. beri dhoweed waxaanu tagnay masar, waxaanu casuumay wasiirka caafimaadka ee masar, waan la kulmay wasiirka iyo madaxda wasaaraddaba. waxaanu ku soo heshiinay inay naga caawiyaan postgraduateska scholarshipyo. waxay noo ballan qaadeen in scholarshipsna ayna siin doonaan insha allah, discountna noo samayn karaan qofkii awooda inuu lacag iska bixiyo, ay discount noo sameeyaan. waa $1,200 pound, 20% discount ah ayaan ku heshinay inayna siiyaan qofkii iska bixin kara. scholarshipyana way noo ballan qaadeen. jaamacatul carab waan la kulmay, iyana waxay noo ballan qaadeen scholarships badan. baahida noogu weynay marka wasaarad ahaanna haysa waxa weeye dhakhaatiirteena juniorka oo aan rabno inay noqdaan takhasusaad soo bartaan. waa dadaalaynaa. idinkuna wixii awoodow postgraduate raadso, laakiin intaadan raadsan waa inaad muddo shaqaysid. wiilkii wuxuu igu qanciyey, waxaan doonayaa keliya lacagba uma jooga meesha, in aan aqoontayda dhiso oo ay gasho CV-gayga inaan cusbitaalka weyne intaa leg oo cusbitaal ka mid ah cusbitaallada ugu waaweyn. marka adoo junior oo cusub postgraduate ha u ordin, wax marka hore baro. in badan baad kalaa soo fadhiday.
markaad muddo baratid markaa kadib way kuu fududaanaysaa hadda Australia dhakhaatiir Australian bari dhaweyd yimid waxayna siiyeen 3 scholarship oo orthopediga imtixaan baa loo geli doonaa dhakhaatiirta juniorka muddada shaqeynaysa baan mudnaanta siin doonaa wixii ku guulaysta baa insha Allah tagi doonaa orthopedicuna waa meelaha aynu aad iyo aad uga liidano jaamacadaha soo saara xirfadlayaasha caafimaadka waxaan ka codsanaynaa inay eegaan baahida jirta ee loo baahan yahay dalka looga baahan yahay isla markaana ay soo saaraan xirfadlayaashii caafimaad ee dabooli lahaa baahida hadda dhinaca caafimaadka waxa ugu badan ee soo saartaan waa public health iyo nutrition labaduba waxay flagreeyeen marketkii oo ardaygii markuu soo baxo public health barto ama nutrition barto siduu shaqo ku helaa iminka way adkaatay waayo aad bay isugu bateen waxaa jira fields badan oo aan dalka ka jirin oo loo baahan yahay in la soo saaro waxaa ugu horreeya radiologist ma hayno cid soo saartana ilaa hadda ma jirto haddaanu u baahno radiologist waa inaan dibadda ka keenno aad bay ugu yar yihiin waddanka physiotherapist ma jiro dalka dhan hal qof baan ku arkay wax physiotherapist pharmacist aad buu yar yahay waxaan u malaynayaa waxaa soo saarta un iminka adnaa biomedical engineering dalkeena kama jiro haddii shay iminka cusbitaalka waxaa buuxa qalab aad u jiro badan oo xumaaday waa inaanu dibadda ka soo karaysanno qof hagaajiye qalabkaas waxaan rabnaa inaad soo saartaan xirfadlayaal caafimaad oo daboola sidoo kale xagga mental health cid soo saartaa psychiatrist ma jirto waddankana haddii la tiriyo 3-4 ma gaarayaan marka kuwaasaa baahidiina daboolaya shaqana lagu helaya laakiin haddaad nutrition iyo public health dabada qabsataan waxa weeye inama anfacayso waxaan doonaynaa inaad samaysaan assessment soona saartaan baahiyaha dalkeena ka jira isla markaana tababartaan dadkii inoo dabooli lahaa bani aadankuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashyoogtee yuu kaga bogtee